Puntland waa ku sheegay way hore u qabsatay badii maxamed Saciid Cabdullaahi Dani midda guud miyaan tii guud ma la gaarin badii waxa laga hadlayo waa golaha deegaanka way waxa laga hadlayo Shangaani iyo loo fiilay tii kaadi ta guud waa la gaarayaa markii aan la soo simanna Saciid Cabdullaahi Dani oo meelihii uu gaarsiiyay aan gaarsiin ilaahay kugu dharshay adiga Soomaaliya hadda adinka garti idin dhibanaya adigaan Cabdullaahi iyo Soomaaliya dhifirsan gar u dhibanaya yaa aqbali kara meesha la yiraahdo gaalkacyo waqooyigeediina doorashada qof cod waa laga qaban karaa wixii ka sokeeyna qof cod laga geli karo Saciid Cabdullaahi Dani yiraahdo taas ma ogolaanahay ma laga yeelayaa ma laga yeelayo macnaheedu doorashada yaraba maqlaaya doorashada la aadahay waxa weeye tii qof codka ahaa ee deegaanka wax loo socdo Shangaani iyo la iska diiwaangelay degmooyinka hadda iyo degmooyinka kale Soomaaliya la iska diiwaangelin doono waxa loo socdo waxa weeye doorashadii deegaanka la qabanaya ka bacdi waa soo imaanaya hadda Saciid Cabdullaahi Dani waa marti qaadan yahay wuu imaanaya taladu wax ku leeyahay waxaan u soconaa waxa weeye horta doorashada deegaanka aan qabsano ka bacdi mid kale tadana iyaga ka sii tashan doono dadkii loogu talagalay ee isla lahaa oo maxaa la yiraahdaa ee ka dhaxaysay baa ka tashan doona laakiin Puntland dawladda dhexe ma qaban marka sidee la rabaa in la isugu xiro labada doorasho golaasha deegaanka maxaad ka wadaa midan golaha deegaanka taban guddi doorasho jira Soomaaliya oo heer qaran Puntland isagu kama aanan qaban doorasho gola deegaan wasaas marka ma tii ka dhacday Puntland ayaa midaan la waafajinaya sidee la baa doorashada qof iyo codka la yiraahdo oo la yaqaano oo degmooyinka ay u soo dareerayaan bulshada weynta deganeed oo Puntland ka dhacday oo Soomaaliland hore uga dhacday way waxa laga rabaa koonfur Soomaaliland ka dhacdo si hal establish soo gaaro oo markaas ka bacdi loo taabto ayadoo Jubbaland iyo Puntland ku jirna al qabana maxaad ka wadaa seen ugu jirin Puntland iyo Jubbaland intee ka qabanaysaa Puntland waa qabataan ku ayadoo hadda degmo ka dhiman maamul ahaan ay u qabateen heer federaal hadda waa saas oo kale wax kala duwan malaha Jubbaland ka mid weeye Jubbaland waxa loo asteeyay sideed degmo loo asteeyay muxuu ahaa inay ka dhacdo muxuu ahaa doorashada noo sheeg sideed degmo waxa weeye 6 degmo gada afmadow iyo Kismaayo 6 degmo gada diyaar waa oo afmadow Kismaayo ma dawladda gacanta ku haysa waxay weyn wada dawladda Kismaayo ma gacanta ku haya macnaha ka mid weeye haduu waxaan ku yiri Axmed Ismaaciil Islaan uu yiraahdo meesh asaas saxay anaga ma wax saxay markii la waxaynaayay 9 saxiib ay ka mid tahay oo laga hayo Axmed Islaan in laga qabanayo sideedaas degmaan loo asteeyay haduu yiraahdo afmadow iyo Kismaayo laga qaban maayo wax kale waa waxa ka qabanaysan gado 6 degmo gada laga qabanaya oo Soomaaliya kama harayso